لو عصر قلبه لا إذا كلفري هو يادن عدوي على يادن عيشون هو يادن عدا كله سكي وحكو علي على عيدن وضوي halkani waa ceelasha Bullaale ee taariikhiga waxaana maalinkii loo cabid keenaa oo ka caba xoolo aad u tiro badan oo geela waana ceel aad runtii u magac dheer geeyga Soomaalidana aad loogu maqlay kaalimaha suugaanta sida geeljireyaasha halkan jooga ay noo sheegayaan xoolaha waraabinaya ceelkan ayaa faa'iido badan u leh xoolaha marka uu cabana uu ku qadi karaa in badan ceelkani waa ceel geela taariikh dheer u leh isaguna ceel taariikh fog la weeyaan waa ceel geel xoolaha kale aduu ceel geel weeyaan ceel geel wuu ku fiican yahay waxyaalo badan buu ceelkani daawo ka yahay geel markuu yimaado ka hor uu godan yahay uu dhuban uu xaraaronaya marka uu ku caafimaadaa uu dhogorta u hagaajiyaa caanaha uu badiyaa muddo uu ku shaqeeyaa ilaa 12 bilood oo si wareega xilligiisii buu ku shaqeeyaa oo laga gartaa inuu ceelka geel soo cabay sidoo kale daawadiisu waa iska badan tahay qaybta dadka oo kale uu daawo badan yahay ceelku ceel aad u fiican weeye taariikh nolol fiican baa lagu yaqaanaa macnaha geela aad iyo aad buu ugu fiican yahay ceelkan aad iyo aadna sida kale waa lagu fiican yahay wadankana waa lagu nabad qabaa marka waa ceel geel aad iyo aadna bulshada waa u fiicannahay dhanka kale qaar ka mid ah shacabka deegaanka oo biyaha ceelka u soo doontay in ay ku caafimaadaan ayaa nooga warbixiyay faa'iidada ceelkan waxayna noo sheegeen in meelo dhaadheer ay uga yimaadeen si ay u isticmaalaan biyaha ceelkan oo hore looga sheekeeyay in dad badan ay ku caafimaadeen hadda ka horna ayna suuragal ahayn in si nabadgelyo inta deegaankooda u yimaadaan ay biyaha ceelkan ay isticmaalaan nabadgelyada ayaa qayb ka ah in si nabadgelyo leh aan ugu naaloono deegaankeena ayaa hadaladoodii ka mid ahaa dadka aan kula kulannay ceelkan bila aadankina waxaa inta badan oo hadda aan la sheekaystay oo dad hadda bilooyin joogo aan arkay waxay ugu dhaheen anagu aad baan ugu caafimaadnay sanadna sida geel uu sanad oga maqnaanayo baan anagana oga maqnaan karnaa sababtoo waan ku nafisnay xididadii dacarta ku jirtay ilaa xubnaha dacarta ku jirtay biyaha wuu naga soo saaray marka ani biyahan saan ku arkay shakhsi ahaan waxaa waaye biyo ilaa biyo waa la wada cabaa meel waa la cabaa biyo saxaro kaa keenaya ma jiro biyahan waan cabi markaan isku sii daayo halkan baan qabani 2 caag baan wataa caagadna waa caanihii geeloo fresh oo ceelka cabayo Bullaale ah gacantaana waa biyii Bullaale halkaa iyo duurkaan aadi marka alxamdulillah anigii culeyska ahaayo xanuunkii dareemi jiray maanta wax iiga fiican oo iga caafimaad badan ma jiro dadka idaawanayana waxaan kala talin lahaa horta caafimaadka ilaahay baa leh idinkana waxaan igala talin lahaa inaa halkaa usoo shaqo tagtaan wadanku nabad uu noqday meel walba waa la socon karaa cid dulminaysa male cid maarta fidnaynaysa male anigaa arkaysiin waxaan ku joogaa nabadgelyo iyo farxad cid yaa tahay ama cid idabadabaysanaysa ma arkin marka waxaan ii sheegayaa cid walba oo maaragtay caafimaad u baahan ceelashan Bullaale umaada nim ay hali kaga luntay ceelka Bullaale muxuu wada u malayn intaas oo 100 oo wado ayaa ku soo aroorta kana fusha waxa weeyaan ceelkan xoolaha wuxuu u leeyahay faa'iido khaas ah siibatan haddana marka khaasatan la yiraahdo geela wuxuu u leeyahay faa'iido gaar ah geelu marka uu ka cabo ugu yaraan 15 18 12 maalmood ayuu ku qadaa waa la garan karaa geelu marka uu intuu ka filo oo uu daaqaya kaynta wuxuu yeeshaa waxa la wagab marka waa la garanayaa inuu Bullaale ka soo cabay waa ceelasha ka caan ah oo mataqaanaa ka tilmaaman weeye dadka sida dadka oo kale wuxuu u leeyahay iyagana faa'iido waxa ku jirta sida naloo sheegay maadada la yiraahdo black sodium ayaa ku jirta oo jidhka xoolaha iyo jidhka ibni aadamkaba faa'iido u leh waa sida aanu maqalay qofku markuu cabo wuu shubmayaa waxaa looga yimaadaa xamar Kismaayo Hargeysa Addis Ababa Jabuuti waxaa looga yimaadaa halka xaqiiqatan waxaan ku talin lahaa dawladda deegaanka in ay ka samayso hoteelo dalxiisa oo lagu nasto oo dadku ay yimaadaan dadka qarasbaxa u imanaya waa ceel taariikh dheer leh waxa weeyaan waa ceelasha deegaanku ama ummadda Soomaaliyeed yaa ay ku faanta weeye marka wixii meel laga hayo iyo wixii xanuunsan oo ku caafimaadaya oo ku bogsanaya marka dad badan oo dhali waayay oo ku dhali waa la sheegay oo waayahan qarnidan dhalin dadka leeg saas ugu fiican yahay
aniguse laakiin dadkayga cabaya ee dhulka uga yimid ee ceelka cabayaan ka mid ahay marka xanuunkii hayay wax weyn baan iskaga gartay waan caafimaaday marka eegana dawadii iyo biyihii waan cabayaa